السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan soo qaadanayaa 5 boog oo qof kasta oo doonaya inuu bilaabo ganacsi ama hadda ku jiraba uu aad uga faa'iidi doono. haddaba haddii aad tahay qof maskaxiisa ay ku jirto inuu bilaabo ganacsi ama ha noqoto iminka ama ha noqoto waqti soo socda, 5 boog aan soo qaadan doonaa waxay noqon doonaan kuwa aad iyo aad uga faa'iido. Okay, aan iska bilaabano. Boogga koowaad waxaa la dhahaa The $100 Startup. haddii aad tahay qof maskaxda ku haya mashruuc ama fikrad aad u muhiim ah oo aad doonaysid inaad kaga midhalisid, laakiin caqabadda ku haysata ay tahay inaadan ahayn waxaad ku maalgashatid si aad uga midhalisid fikradda iyada ah, booggan waxaa loogu talagalay adiga. booggan wuxuu ku tusin doonaa in aadan u baahnayn maal badan si aad ugaga rumaysid fikraddaadaas. booggan waxaad ku baran doontaa oo aad ku arki doontaa 1500 oo qof oo fikradahoodii ama riyooyinkoodii ku bilaabay wax ka yar $100 waqti xaadirkan la joogana oo ganacsigoodii meel aad u fiican marayo. waxaad baran doontaa habkii iyo wixii ay sameeyaan ee u horseeday inay fikradahooda kaga midhaliyaan iyagoo aan isticmaalin wax sabab u badan oo lacag ah. sidaan sheegay, wax ka yar $100 ay isticmaalaan. boogana waxaad ku arki doontaa weliba si fiican uu qoraal kugu sharaxaya hababkii aad mari lahayd si aad adiguna uga mid noqotid dadkaas oo kale oo aad kaga rumaysay fikraddaadaas. haddaba haddii aad tahay qof maanta dan la joogo maskaxda ku haya fikrad una baahan caawimo ama sidii uu fikraddaas ugaga rumayn lahaa, waxaan kugula talin lahaa inaad akhridid booggan. waxaana hubaa inaad ka faa'iidi doontid wax badan. boogga labaad ayaan soo qaadanaya waxa weeye The E-Myth. ma og tahay in ganacsiyada la furto 80% ay baaba'aan 5 sano ee ugu horreysa? qoraaga booggani waxa uu aad u sii dhexgelayaa ama u sii faahfaahinayaa sababaha keena in ay ganacsiyada badankoodu ay ku baaba'aan 5 sano ugu horreysa. haddii aad tahay qof waqti xaadirkan la joogo ama waqti aad u dhow doonay inuu bilaabo business ama ganacsi, waxaan aad kugula talin lahaa inaad akhridid booggan. sababtoo ah booggan waxaad ka baranaysaa waxyaabaha keena in businessyada ama ganacsiyada badankoodu ay baaba'aan weliba sanadada ugu horreeya. haddaba faa'iidada kugu jirta akhrinta booggan waxa weeye waxaad arkaysaa waxyaabaha ay dadkaas soo sameynayeen ee khaladaadka ah ee ku sababay in ay businessadii ay ka baaba'aan. haddaba haddii aadan doonayn in adigana businesskaagu ama ganacsigaagu uu sidaas oo kale kaa noqdo 2 ama 5 sano ugu horreeyana aanu kaa baabi'in, waxaan kugula talin lahaa in aad booggan akhridid. wax badan waad ka faa'iidaysaa adiga iyo businesskaagana aad iyo aad ayuu ku caawin doonaa. boogga saddexaad ee aan soo qaadanayno waxa weeye Think and Grow Rich. booggan waxa weeye boogga ugu saamaynta badan marka laga hadlayo dadka milyaneerada ah ama nolosha meesha fiican ka gaadhay. aad ayay u yar tahay inaad aragtid qof maanta milyaneer ah oo yidhaahday booggani saamayn weyn iguma yeelan ama maan akhriyin. sabab ayaana jirtaa uu booggan saamayn weyn ugu yeeshay dad badan oo noloshoodan u beddelay. booggan waxay qaadatay in la qoro muddo 20 sano ku dhow. 20 sano ee uu ku guda jiray qoraalkiisa, qoraagu waxa uu la kulmay 500 oo qof oo businessada ama nolosha meel fiican ka gaadhay. 500 ee qof uu la kulmay kadib waxa uu keenay ama uu ogaaday 13 caado oo ay 500 ee qof ka sameeyeen yihiin. boogganna waxa uu si fiican ugu sharaxayaa 13 caado ee qof kasta oo milyaneer ah uu haysto. caadooyinka waxaa ka mid ah hadda mid soo qaato aaminaanta iyo kalsoonida aad naftaada ku qabtid. haddii aad naftaada ku kalsoon tahay in wax kasta oo aad doonaysid aad qabsan kartid, waad qabsan kartaa haddii aad la timaadid dadaalkeeda. laakiin waxa ugu muhiimsan ee ugu horreysa waxa weeye aaminsanaanta aad aaminsan tahay inaad waxaa ku dhici kartid aadna samayn kartid. 13 qodob ee uu qoraagu soo qaatay mid waa taas. marka haddii aad tahay qof doonay inuu noloshiisa maskaxeed bedelo oona doonaya inuu ogaado waxa ay dadka horumaray ama caadooyinkooda waxa ay sameeyaan ama habka ay meesha ku gaadheen, waxaad akhrisan kartaa booggan. waxaana aaminsanahay inuu wax badan kaa bedeli doono iyo sida aad u fikiraysidba. okay, booggan afraad waxa weeye How to Win Friends and Influence People. booggan waxa uu ka hadlayaa ama uu sharaxayaa sida aad qof kasta oo aad la kulantid aad uga dhaadhicin kartid fikradahaaga ama ra'yigaaga adigoo aan isticmaalayn hadal qalafsan. qofkaana aad maskaxdiisa ku bedeli kartid si fudud oo aad u qabow weliba. tusaale ahaan, haddii maanta aad leedahay business, waxaa laga yaabaa inaad haysatid dad kula shaqeeya, ha ahaadaan kuwa aad meesha ka wada shaqaysaan ama ha ahaadaan kuwa aad alaabtaada aad ka dalbatid. booggan wuxuu ku tusinayaa habab aad dadkaas iyagoo fikradooda markii hore ay si kala ahayd aad fikradooda ka bedeli kartid
sida aad adigu doonaysidna aad ka dhigi kartid. Tusaalahaan kale haddii aad alaab qof ka dalbatay oo aad lacagtii tusaalahaan oo kale isku fahmi laadiin, waxaa buuggan ku tusinayaa habab aad samayn kartid si aad qofka maskaxdiisa uga bedeshid, saameynna ku yeelan karta in qofkaasi uu sameeyo sidii aad ugu doonaysay. Buuggan shanaad ahna kan ugu dambeeya ayaa waxaa la dhahaa Rich Dad Poor Dad. Qoraaga buuggani waxa uu ku tusinayaa in iskuul laga soo baxo kadibna la helo shaqo caadi ah aan ahayn habka ugu fiican ee aad ku horumarin kartid noloshaada. Qoraagu waxa uu soo qaatay wiil leh 2 aabbo, mid waa aabbihiisa caadiga ah dhalay, midna waa aabbaha dhalay saaxiibkiis. Marka isaga aabbaha dhalay waxa weeye aabbaha faqiirka ah, halka aabbaha kale ee saaxiibkii dhalayna uu yahay aabbaha taajirka ah. Aabbihiisa caadiga run ahaantii marka runta laga hadlayo maaha faqiir, waa nin wax soo bartay, jaamacad ka soo baxay oo PhD dhameeyey, shaqo fiicanna haysta. Halka aabbaha kale ee taajirka ah aanu wax iskuulaba soo dhigan, iskuulna uu ka baxay markuu marayay kalaaska 8aad. Haddana iyadoo ay saas tahay oo aabbihiisa runta ahay uu shaqo fiican haysto, jaamacad ka baxay, haddana waxa uu markasta dhibaato ku qabay uu ka cali jiray inaanu haysan lacag ku filan. Halka aabbaha kale uu bilaabay business, uuna noqday dadka ugu taajirsan waddankaas. Almicna maxaan buuggan ka fahmi karnaa halkan aabbaha faqiirka ah oo waqtigiisii waxbarasho jaamacad soo galay oo uu waqti badan ku soo isticmaalay ayaa aabbahan kale waxa uu waqtigiisii geliyey oo uuna ku dhiiraday inuu bilaabo business ama ganacsi, waana ta uu doonay inuu qoraalku inoo sheego. Marka waxba hadalyaal idinku daalinaa, buuggan waxa uu qoraalku ku soo koobayaa ama uu inoo caddeynayaa in haddii uu qofku doonayo inuu noloshiisa meesha uu ka doonayo uu gaadho aanay ahayn iskuul iyo shaqo aad qof kale u shaqaysid waddada saxda ah. Waxaa laga yaabaa in dad badani aanay arrintaa iyada ah ku raacsaneen. Adigana dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inaad tirahdid ma waa khalad oo iskuul waxbarasho iyo shaqo waa loo baahan yahay, waana sax. Laakiin buuggan waxa weeye dad kale ku dhac kuna dhiiran kara in wax iyaga u gaar ah samaysta. Waxaa jirta 5 buug oo kale oo iyaguna khuseeya mawduucan, aana insha Allah isku dayi doono in aan ka dhigo part 2, muuqaalkana ka xiga aan ka dhigo insha Allah. Buugaagtan waxaad ka heli kartaa internetka. Haddii aad doonaysidna waad iibsan kartaa. Haddii aadan chance u hayna waxaad ku akhrisan kartaa PDF ahaan, weliba si bilaash ah. Waxaad ku qoraysaa buugga magaciisa, baad Google ku qoraysaa, PDF-na waad ku daraysaa, halkaasna waad ka akhrisan kartaa buugga oo dhammaystiran. Ma haddii labadaa midna aanay ku qancin ama aadan waqti u hayn sababo dartood, commentiga hoose ayaad igula wadaagi kartaa. Waxaana isku dayayaa buuggii aad doonaysaan inaan ka soo sameeyo summary, waxa ugu muhiimsan buuggaas ayaan ka soo qaadanaya insha Allah. Sida ugu fiican ee aan u sharax karayna waxaan isku dayaa inaan u sharaxo. Marka commentiga hoose ayaad igula wadaagi kartaan buugga aad doonaysaan inaan ka soo sameeyo muuqaal kaligiis ah si fiican aan u sharaxo. Waana muuqaalka dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.